bismillah waa mar kale iyo barnaamijkeena sirta nolosha maanta waxaan soo qaadan doonaa ama aynu ciwaan uga dhigi doonaa barnaamijkeena mid ka mid ah su'aalo aan aad isku weydiiyo runtii marka aan isarko anigoo qof been u sheegaya haddaan isarko anigoo qof u ballan qaadaya waxaan wixii ahayn su'aal baa jirta aan is weydiiyo oo ah maxaa igu kalifay inaan beentan sheego maxaa kugu kalifay baa naftayda ku dhacday inaad beentaa sheegto dib baan u raadceeyaa kolka maanta ka hadli mayno beentu waxa ay tahay iyo Allahumma salli ala Muhammad inay xaaraan tahay iyo in kale iyo naskeena iyo diinteena waxay ka qabto ka hadli mayno oo taabadiya culimada ay naga qabtira laakiin dhan kale aynu iska soo istaagayna oo angle kale aynu ka soo eegaynaa waxaynu ka soo eegaynaa waxa keena beentan waxa keena oo anigu waxaan u arkaa beentu inay tahay rucub ama midho kamid ah midho uu geed bixiyo kolka hadaad midhaha geed ka gurto maanta berito marka uu magaalo uu roob helaabo dib midhuhu u soo bixinaya kolka ilaa aynu geedka goyno oo aynu xididka u saarno mooyaane beentaasi ma joogsanayso sidoo kale waxaan u arkaa inay tahay qufac oo tusaale ahaan xanuun baa keena qufaca oo qufacu waa astaanta xanuun jira kolka beenta waxaan u arkaa inay tahay mid ka mid ah astaamaha xanuun ku dhaca xanuunada nafsada qofka ibni aadanka ku dhaca kolkaas aynu beenta u joojino ama aynu beenta uga hortagno waa inaynu markasta sababaynaa waa inaynu markasta isweydiinaa maxaa igu kalifay inaan beenta sheego guud ahaan waxa beenta keena waxa weeyaan haddaynu si yaro kooban u sheegno waxa weeyaan runtaad diidaysaa runtaad ka baqaysaa runtaad ka hortegaysaa runtaad ka warwareegaysaa runtaana doonayn inaad sheegto taasaa keenta guud ahaan inaynu beenta sheegno oo tusaale ahaan hadduu aabbaha kugu yidhahdo caawa walaalkeed ka timi oo tidhaahdo waxaan ka imi xaafadii baan ka imi adigoon ka imanaysa suuqii ka yimi oo saacad dambe ka yimi marka runtii waxa weeyaan suuqii baad saacad dambe ka timi oo adigaa qaldan qaladkaasaad diidaysaa markaa in lagugu qabsado kolkaa baqasho aad runtaa ka baqanayso baad been sheegaysaa haddii tusaale ahaan si kale aynu u dhigno inu idhaahno haddaad gabadh la haasawdo ama aad la hadasho oo aad ku tidhaahdo shirkad weyn baan ka shaqeeyaa shirkad heblaayaan managerka ahay caynkan mushaharkaasaan qaataa ma garanaysaa laakiin aanaad ka shaqeyna meel yaroo kale aad ka shaqayso mushahar intii ka yar aad qaadato runtu waxa weeyaan gabadhanaanad doonayn inay ogaato inaad meel yar ka shaqayso gabadhanaanad doonayn waayo waanay ku guursanayn waanay ku yeelayn runtii waa taa baqasho aad runtaa ka baqanayso baad beentii sheegaysaa kolka inaad su'aashan isweydiisaa markasta waxay kaa caawinaysaa inaad garato dhuuxa ama shayga keenaya inaad beentaasi sheegto oo tusaale ahaan mararka qaar haddaad istidhaahdo ood sababaysa beentaada oo tidhaahdo hoto maxaad beenta inanta ugu sheegaysaa dee waxaan ugu sheegayaa beenta maxaan doonayaa inayd guursato oo markaa waxaad doonaysaa inay kugu guursato been waxaan doonayaa been igu guursato oo markaa waxaad doonaysaa hadhow miyaanay ogaanayn beenta marka aad guursato ta kale qof haddaad kusoo xero gashato been miyaad ogaanayn hadhow tole ogaanayo xaqiiqada miyaad ogeyn ta kale qofka mushaharka kugu jeclaada ee mushahar kugu soo raaca berito marka shaqada lagaa eriyo inuu isaguna iska tegi karayo waayo wuxuu kugu soo guursado kugu yeelayba mushaharkan u ah haddaad saa isu weydiiso waxaad ogaanaysaaba inaad adigu khaldan tahay marar badan oo kalena waxaad ogaanaysaa xanuunka keena ama jiridda keena iyo sababta keenta beentu inay tahay kalsooni la'aan aynu nafaheenna ku qabno kalsooni la'aan aynu ka qabno mushaharkeena iyo meelaha aynu ka shaqayno kalsooni la'aan aynu ku qabno reeraha aynu ka soo jeedno kalsooni la'aan aynu ku qabno dalka iyo magaalada aynu joogno dadka qaar baan arkay dhalinyarada qaar oo magaalo iyagoo dalka jooga koranaya Yurub baan jooga kalsooni kuma qabo waxaanu kalsooni ku qabayn dulkiisii hooyo joogo marka marar badan waxa keena kalsooni la'aan nafaheenna ah marka beenta waxaad ku joojin kartaayo khaliya adigoo kalsooni la'aanta daweeya adigoo kalsooni la'aanta ka hortaga si kale se beentaasi kuma dawoobayso oo kuma joogsanayso marar badan oo kale waxa beenta keena qof baa kugu keenaya qof aad asxaab tihiin qof aad family iyo ay magaranaysaa qaraabo tihiin baa beenta kugu keenayo ilaalinta aad is leedahay qofkan ilaali qofkan sirtiisa ilaali qofkan wixiisa ilaali aad is leedahay baad 100,000 oo beenood sheegaysaa beenta aad sheegaysaa kolkaas sida qura ay ku dawoobaysaa waxa weeyaan adiga oo qofkan noloshaada ka saara adiga oo qofkan ku yiraahdo walaalo habeen iyo maalin been baan aawadaa sheega ma sheegi karayo imanka laga bilaabo been sida qura aad beenta ku joojin karaysaa waxaan kolkaa inaad qofkan ku tiraahdo been ma sheegi karayo
sababo badan oo kala keeni karaya. laakiin mararka qaar waxaan arkaa dad beenta sheegaya ama been sheegaya sabab la'aanba. wuxuu beentan u sheegayaa isagoo oon uba baahnaynba. beentan wuxuu sheegayaa isagoo oo aanay wax allaaliya waxay taraysaa. kuwii hore waxbaa bay u tarayso mid gabadh baa ku guursanayo caynkan iyo caynkan. laakiin qof baad arkaysaa been sheegaya sabab la'aan. dabeed qura qofkaas wuxuu u baahan yahay inuu su'aasha isweydiiyo maxaa kugu kalifaya inaad beentaa sheegto. dib hadduu u xisaabtamo oo uu su'aasha dib isu weydiiyo oo uu dabadeed maxsuulka u soo baxa falgeliyo waxa ku filan uun intaa. waxa uu dabadeed ka hortegayaa inay noloshiisoo dhani been noqoto oo beentu been bay kuu dhiibtaa. inantaa imika uu ku yidhi meel baan ka shaqeeyaa mushahar baan qaataa caynkan iyo caynkan uu ku yidhi gabadhu caynkaa ku yidhi haddii uu la soo hadlo beriyo uu ku yidhaahdo bas baan saaranahay dee kama yeelayso gabadhaas. waxaa ku odhanaysaa aawi mushaharkii iyo waxaad qaadan jirtay maad gaari lahayn. kolkaa waxay noqonaysaa inuu been sheego oo uu yidhaahdo bas ma saarniye gaadhigaygii baa inaan saaxiib nahay iga qaatay caynkan iyo caynkan. waxay dabadeed su'aasha aad isweydiinaysaa waxay ka hortegaysaa inay noloshaadoo dhan been noqoto. waayo hal beeni waxay kuu hogaamisaa beena kale. noloshaaduba dabadeed been bay noqonaysaa. waxaad been ka sheegaysaa halkaad joogto, waxaad been ka sheegaysaa waxaad ka shaqayso, waxaad been ka sheegaysaa jaamacad aad dhigato. gebigaagu waxaad noqonaysaa qof been ka sheega. marka dambe naftaada xataa la qabsanaysa. halkeed ka timaadday lagu dhaahdo adigoo guriga ka imaadonaysaa suuqa maxaad wax kasta been baad ka sheegaysaa. wax kasta been baad ka sheegaysaa. waayo been bay kuu hogaamisaa. noloshaaduba dabadeed waxay noqonaysaa nolol buga oo fake oo waxa jira iyo xaqiiqadeeda iyo waxa gudaha ku jira iyo waxa ay dadku ka aaminsan yihiin oo farqi aad weyn u dhaxeeyo. kolka waxaynu dhammaanteen jecelnahay ama aan idinku dhiirigelin lahaa nafteedana ku dhiirigelin lahaa inaynu mar kasta oo aynu been sheegno isweydiino maxaa niyo kugu kalifaya inaad beentan sheegto. ma qofbaa ma kalsooni la'aanbaa waa maxay waxa kugu kalifaya beentani. waxaa kugu kalifaya dawee. waxaa kugu kalifaya ka hortag. waxaa kugu kalifaya iska ilaali. sidaasoo qura ayaa beenta lagaga hor imaadaa. waana sida qura ee beenta lagu daweeyo. muddadii yaroo gaaban baan su'aasha isweydiinayay oo aan naftayda maganaysaa ku dabrayay oo aan dhaqan gelinayay su'aasha iyo maxsuulka iga soo baxa. waxaan aad u arkay saameynteedii muddo yaroo gaaban. waxaan arkay anigoo qof kasta run u sheegaya xataa gudahaaga farxad baad dareemaysaa marka aad ogtahay qofkani inuu run og yahay inuu xaqiiqada og yahay qofkani. gudahaaga farxad baad dareemaysaa. haddaad ogtahay qofkani inuu og yahay meeshaad dhigato rasmiya, meeshaad ka shaqayso rasmiya, magacaagoo rasmiya, adigoo rasmiya qofka ku yaqaana agtiisa xataa farxad baad ku dareemaysaa. halka qofka kale ee beenta sheega uu habeen iyo maalin naxdin uu ku nool yahay. waayo kan wuxuu ku yidhi waxaan dhigtaa jaamacadda Oxford, kan wuxuu ku yidhi shan qof baa laga yaabaa inuu sheegay 5 been oo kala duwan. dabeed qof baa isagoo meeshii rasmiga ahayd u dhiganayay jooga u imanaya kii uu beenta u sheegay. naxdin baad ku noolaanaysaa dabeed. waayo kan xaafadiinaad been uga sheegto waxa ku tiri meel heblaayaan galaa, kan meeshaad dhigataad been u sheegtay, kan gabadha aad qabtaad been uga sheegtay, kan inta caruureed leedahay baad been u sheegtay. dabeed noloshaada dhan naxdin bay noqonaysaa. marka aynu ka hortagno beenta aynu sheegayno. waa xaaraan. noloshay kugu adkaynaysaa beentu. waxay kaa dhigaysaa qof aan ku noolayn noloshiisa. waxay kaa dhigaysaa qof aan ahayn isaga. marka ha noqon qof aanad adigu ahayn. ha sheegin been. kana hortag. mar kasta ood aragto adoo been sheegaya, adoo qof u ballan qaadaya been, adoon waxaan wixii ahayn ku suntaya haddaad is aragto, isweydii waxa kugu sababaya ee kugu kalifaya, kana hortag. caawo barnaamijkeenna intaasuu inoogu ekaan doonaa. aad baa u mahadsantihiin. waad ku mahadsan tahay inaad xalqadan daawato. barnaamijka Sirta Nolosha waa barnaamij dhiirigeliya nafta iyo nolosha inaga oo mar kasta soo qaadana tusaalayaal xaqiiqada waafaqsan. barnaamijkan ama xalqadan waxa inoo suura geliyay oo inoo maalgeliyay shirkadda Somcable. waa inoo xalqadan iyo xalqada xigta.